Bismillaah. Soo dhawaada dhammaan ardayda barata luqadda Ingiriiska. Haddii ay tahay markaadii kugu horeysay ee aad soo boqoto channelkeena, fadlan subscribe noo saar. Cashirkan maanta maxaan ku baraneynaa waxa loo yaqaana phrasal verb. Phrasal verb ama markay badan yihiin phrasal verbs. Marka hore aan isla fiirina phrasal verb maxaa la yiraahdaa. Phrasal verb waa eri ficil ah. Waa eri ficil ah oo lagu dari hal ama laba eri oo yaryar ama jabjab sida preposition-yaalka ah on, in, at ama adverb-yaalka ah up, down, out. Marka phrasal verb muxuu ka kooban yahay laba ama saddex eri oo wada socota. Labadan ama saddexdan eri mid ka mid ah waa ficil, halka ama labada eri soo hartana waa jabjab sida preposition-yaalka aan kuu sheegay oo ahay on, in, at ama adverb-yaalka aan kuu sheegay oo ahay up, down, out. Marka haddii aan fiirino micnaha asagoo English ah, phrasal verb is a verb waa ficil that is combined kaasoo lagu dari with one or more particles hal ama in ka badan oo ah particles qayba yaryar. Badana ficilka maxaa la socda hal ama laba kalimadood oo yaryar oo ah jabjab. Usually inta badan maxaa la socda a preposition la socota sida on, in, at, or adverbs ama adverb-yaal sida up, down, to create si ay u abuuraan ama u hagaajiyaan a new meaning macno cusub that is often kaasoo mar walba different ka duwan from the meaning micnaha of the original verb ficilka hore micnihiisa ka duwan. Maxaan ku sheegay phrasal verb inay ka kooban tahay laba ama saddex eri. Marka eriga u horeeya waa ficil. Maxaa soo haray marka hal eri ama laba eri. Halkan eri ama labadan eri soo hartay maxay noqon karaan preposition ama adverb. Phrasal verbka wuu ka micno duwan yahay ficilka uu wata. Tusaale phrasal verbka look out. Phrasal verbka look out waa ka digtoonow ama iska jir. Ka digtoonow ama iska jir. Marka phrasal verbkanay look out muxuu ka kooban yahay laba eri. Labadaas eri oo kala ah look iyo out. Look iyo out. Look micnaheedu waa fiiri. Outna waa banaanka. Marka phrasal verbkan micnaheeda maahan banaanka fiiri. Micnaha muxuu noqday ka digtoonow ama iska jir. Laakiin tii labadan eri haddii aad isku darto haddii aad caadi u fasirta maxay noqon lahaayeen look out fiiri banaanka. Laakiin tii micnaha sidaas waa ka duwan yahay. Look out phrasal verbka micnihiisu waa ka digtoonow ama iska jir. Halkaas maxaan ka fahnay marka phrasal verbka inuu ka micno duwan yahay ficilka uu wata verbka uu wata inuu ka micno duwan yahay. Isku soo duuduub marka phrasal verb muxuu ka kooban yahay verb lagu dari hal eri ama laba eri kuwaasoo noqon kara preposition ama adverb. Aan ku bilowna marka phrasal verbka pass out. Pass out laba micno ayay leedahay. Phrasal verb-yaalka qaar maxay leeyihiin hal micno wax ka badan 2, 3, 4.
marka pass out maxay leedahay laba micno. micnaha koowaad to distribute something inaad wax qaybiso. micnaha labaad to feign suuxitaan. to feign suuxitaan. tusaale aan fiirina ayakoo jumlada ku dhex jiro. micnaha koowaad ee pass out oo ah in wax la qaybiya aan fiirina. tusaale the teacher macalinku passed out muxuu qaybi the exam papers qardaasaha imtixaanka to the student ardayda ayuu qaybi. the teacher macalinka passed out muxuu qaybiyay the exam papers qardaasaha imtixaanka to the student ardayda ayuu qaybi. micnaha labaad ee pass out maxaan dhahnay suuxitaan. tusaale Ahmed passed out wuu suuxi while he was running asagoo ordaya. Ahmed passed out Ahmed wuu suuxi while he was running asagoo ordaya. phrasal verbka labaad waxaa waa pass away micnaheeda waa to die dhimasho. tusaale her father aabaheed passed away wuu dhintay last night habeenkii aan soo dhaafnay oo ahay habeen hore. micnaha marka pass away waxaa waa dhimasho. tusaale maxaan dhahnay her father aabaheed passed away wuu dhintay last night habeen hore ayuu dhintay. phrasal verbka xiga get along with micnaheedu waa have a good relationship inaad qof la lahaato ama cid aad la lahaato xiriir fiican. micnaha guud waa marka isku fiicnaan aad isku fiican tihiin inaad wax isku fiican tihiin wax ay noqdaanba ha noqota cid ha noqota shakhsi ha noqota shay. marka tusaalaan fiirina marka tusaalaha wax lagu fahmaayo. aniga get along with maxaan isku fiicannahay my neighbors. aniga get along with my neighbors maxaan isku fiicannahay dariskayga. anigu maxaan isku fiicannahay dariskayga. aniga get along with maxaan isku fiicannahay my neighbors dariskayga. neighbors darisyaal badan ayaa la yiraahdaa. macnaa daris midig ka jira bidax dhinac ka jiro neighbors darisyaal badan. phrasal verbka xiga come up with waxaa waa suggest or create an idea inaad wax soo jeedisa or mise create inaad abuurta an idea fikrad inaad abuurta. marka come up with waxaa laga wadaa inaad wax la imaado ama aad wax soo jeedisa ama fikrad aad abuurata adiga wax la imaada. tusaale she come up with maxay la imaadey ama maxay soo jeedisay a great plan qorshe weyn ay soo jeedisay qorshe aad u fiican oo weyn ay soo jeedisay. she come up with maxay la imaadey with a great plan qorshe aad weyn cajiib. phrasal verbka xiga run out of micnaheeda waxaa waa have no more of something inaad wax haba yaraatay waxba kuu harin ay kaa dhamaadeen. ka dhamaasho ayaa la yiraahdaa run out of wax kaa dhamaada waxba kalaba ay ku harin macnaha.
tusaale wax lagu fahmaaye we anaka run out of maxaa naga dhamaaday the sugar sokorti way naga dhamaatay we anaka run out of maxaa naga dhamaaday the sugar sokorti we run out of maxaa naga dhamaaday the sugar sokorti aan fiirina eriga xiga maxaa ka wada phrasal verb ka xiga phrasal verb ka xiga waxa waa put down waxa waa to write something inaad wax qorta tusaale he asaga put down muxuu qori my name magacayga phrasal verb ka u dambeeya waxa waa put back waxa waa micnaheeda to return something inaad wax celisa aad ku celisa to the original place meesh booskiisa hora aad ku celisa tusaale I will put back waan celin doonaa the book waan celin doonaa to the room qolka ayaan ku celin doonaa once I finish reading mar haddaan boga akhrintiisa I will put back ani waan celin doonaa the book waan celin doonaa to the room qolka ayaan ku celin doonaa once I finish reading mar haddaan boga akhrintiisa haddii aad naga faa'iiday hal kalimad ama hal eri fadlan subscribe noo saar haddii aad muuqaalkan ka heshay fadlan like noo saar sidoo kale nala wadaag eriga aad naga baratay